السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتني كوبي تومناد اتحانيهني طريقة جوشة. قيبتي تومناد وحي إنو مريسي مركي وحاكمكو لها إلهي وحو قرآن كيسا كويري كين إلهي أغو دوي وكين إلهي أغو عبسيدة بدن وحان أغنهي إن هدي الروح أغلاق دي سوء في عنين إن دادك أردامي كاكال أرديان سيدا إلهي قرآن كيسا كوشاقي وحونا يري سيدان هدي آد أهان لهيد نبي محمدو مد قلبي أدق أو دبعيحن dadku agtaada way ka kala yaaci lahaayeen wiilkii yaraa ayaa yiri waxaan u malaynayaa hadalkan wuxuu taageersan yahay oo adeecaya hadalkii Axmed Shawqi oo uu lahaa ummaduhu waa akhlaaq inta ay jiraan hadiise akhlaaq laga waayo iyagana waa la weynayaa xaakimkii ayaa wiilkii yaraa ku yiri u fiirsa arrimahan wiilyahow waa adigaan durbadiiba hadalkayga hadal wanaagsan ku biirinayee hadalkaas imika kaa soo baxay wuxuu tusinayaa ama cadaynayaa inaad ilaahay jeceshahay sida awgeed ayuu ilaahay carabkaagii ka dhigay mid macaan oo hadal wanaagsan ku hadla aniguna waxaan ku xasuusinayaa xigmad carabiya oo dhahaysa dhulka isdhig adiga oo sareeya samir mar walba xigmad awgeed cadaalad samee adiga oo awood leh iska cafi adiga oo aarsan kara wiilkii yaraa ayaa yiri hadalkan aad buu u macaan yahay waxaana imika dareemayaa inaan qaabili karo dadyow aad u fara badan maxaa yeelay waxaan ku hubaysanahay jacaylka ilaahay iyo ku xirnaanshada ilaahay sidoo kale waxaan ku hubaysanahay daacada iyo ikhlaaska sidoo kale waxaan ku hubaysanahay oofinta ballanta iyo niyad wanaagga iyo sidoo kale akhlaaqda wanaagsan oo aan dadka kula tacaamulayo kadibna xaakimkii ayaa u soo dhawaaday wiilkii yaraa oo ka dhunkaday labada daan isaga oo dhoola cadaynaya kadibna ku yiri ilaahay ha kuu furo albaabadiisa waadna arki doontaa sida uu ilaahay kuugu furo khayraadkiisa insha Allah maxaa yeelay waxaad baratay dariiqii aad ku gaari lahayd guusha sare kaasoo ah dhabtii dariiqa ilaahay wax kasta oo aad samaynayso waxaad u samaynaysaa ilaahay daraadii dadka aad la dhaqmayso waxaad ula dhaqmaysaa ilaahay daraadii ayaa dadka ku saamaxaysaa haddii aan nahay bini aadan waxaan nahay dadkii ilaahay laakiin haddana waxaa jiro shay kale oo muhiima wiilka yarow kadibna wiilkii ayuu u soo dhawaaday wuxuuna ku yiri dadka ha kula tacaamulin dhaqankooda mid la mida kaasi waa darsiga ugu horeeya ee ka hadlaya sida dadka loola tacaamulo ku dadaal had iyo jeer inaad kala saarto ruuxa iyo habdhaqankiisa wiilkii yaraa ayaa yiri ma fahmin hadalkaaga sidee baan u kala saari karaa ruuxa iyo habdhaqankiisa xaakimkii ayaa ku jawaabay insaanku waa makhluuqa ugu fadliga badan inta ilaahay abuuray ilaahay wuxuu qur'aankiisa ku yiri ilaahay wuxuu idinka abuuray bini aadanow abuuritaankiisa ugu fiican uguna quruxda badan waxaana sharaf inoogu filan inuu ilaahay inoogu abuuray gacantiisa oo uu inoo sakhiray cirka iyo dhulka inta u dhaxaysaba sida ilaahay qur'aankiisa ku cadeeyay waxaana suuragal ilaahay u ahayd inuu yiraahdo ahaw oo aad ahaato laakiinse si uu kuu karaameeyo oo uu kuu weyneeyo ayuu gacantiisa sharafta badan kugu abuuray wax kasta oo kalena adiga ayuu kuu abuuray si aad ugu intifaacsato wuxuuna ku siiyey maskaxdaasoo ay ku jirto 150 bilyan oo unug caqliyeed ah oo awoodda qaadkeeduna yahay ilbiriqsigiiba 2 bilyan oo macluumaad ah kaas oo ka dhaqsi badan ama ka xawaaro badan xawaaraha iftiinka xawaaraha iftiinku waa 186,000 oo mayl ilbiriqsigiiba wiilkii yaraa ayaa isaga oo yaaban fiiriyey xaakimkii ayaa ku yiri wiilkii yaraa miyaad yaabtay miyuusan ilaahay odhan wa fii anfusikum afalaa tubsiruun miyiidaan arkaynin sida aan naftiinna u abuurnay xaakimkii ayaa hadalkiisa sii watay wuxuuna yiri wiilkaygiyow waxaa kugu sugan waslad hiliba waana qalbiga wuxuu garaacayaa 100,000 oo jeer maalintiiba adiga oo aan dareemayn garaacaas wax kasta oo gudahaaga ku sugani wuu dhaqaaqayaa dhaqaaq xigmadaysan ilaahay wax kasta wuu kuu sakhiray haddii aad go'aansato inaad gacantaada kor u qaaddo waad qaadaysaa ilaahay xubin kasta oo jirkaaga ka mida wuxuu u abuuray inay ku adeecdo oo sida aad doonto aad ka yeesho sidaa awgeed wiilyahow waa inaad ku baraarugtaa kala saaridda ruuxa iyo habdhaqankiisa maxaa yeelay ruuxani waa inta ilaahay abuuray kii ugu khayrka badnaa oo ilaahay ayaa ruuxdiisa ku afuufay wuxuuna ka dhigay inuu dhulka wakiil uga noqdo sidaa awgeed ayay noqonaysaa inaad kala saarto ruuxa iyo habdhaqankiisa wiilkii yaraa ayaa yidhi oo sidee baan habdhaqan qofi leeyahay u beddeli karaa xaakimkii ayaa ku jawaabay waxaad awoodda saartaa mawduuca uu ka hadlaayo sida aad u fahanto sida wejigiisu cabbiraayo dhaqdhaqaaqa jirkiisa iyo neefsigiisa laakiin su'aasha ayaa waxay tahay maxaa ruuxa gaarsiiyey xaaladda uu ku sugan yahay wiilkii yaraa ayaa fiiriyey xaakimkii oo yidhi dhabtii ruux baa maalin maalmaha ka mida igu yidhi doqon yahow waxaan ku idhi maxaad sidaa iigu odhanaysaa
wuxuu iigu jawaabay maxaa yeelay waad iyastay. Waxaan ku idhi kuma xaqirin walaalkayow. Wuxuu iigu yidhi maya waad i xaqirtay markii aad sidaas iyo sidaas igu tidhi. Waxaan ku idhi maya walaal, sidaa ulama jeedin anigu, waxaan ula jeeday sidaa cagsigeeda. Almuhiim haddana iga raalli noqo ayaan ku idhi. Wuxuuna igu yidhi aniguna waxaan kaa raalligelinayaa hadalkii aan kugu idhi ee aan akhlaaqda lahayn ee adiguna iga raalli ahow. Xaakimkii ayaa ku jawaabay tani waa akhlaaqda wanaagsan, waana ujeeddada aan ka leenahay mawduuca. Awoodda saar waxa aad ka hadlaysiin ee qofka ha u fiirsanin, maxaa yeelay habdhaqanka qofka waxbaa keenaya. Waxaas keenaya ayaa la rabaa inaad ogaato. Haddii aad sidaas samayso waxaad noqonaysaa dadka ugu fiican ee xidhiirka bulshada yaqaana oo looga dambeeyo. Tacaamulka noocan ahina wuxuu ku gaarsiinayaa qodobo muhiima oo ah inaad iswaafaqdaan adiga iyo qofka kale. Haddii aad heerkaas gaartana waxaad ogaataa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barakaynayo. Maxaa yeelay haddii xataa ruuxa kale uu yahay mid cara badan, waxay xigmaddaadu iyo hadalkaaga wanaagsani ku qasbaysaa inaad carada ka saarto. Haddii aad habdhaqanka awoodda saarto, meesha waxaa imaanaya xidhiir, waxaa imaanaya raddu ficil. Mar haddii uu raddu ficil imaadana, adiguna naftaada ayaa dufaacaysaa. taasina marna looma baahnayn. Ujeeddada ugu muhiimsan waxay tahay inaad adigu ra'yigaaga siiso mawduuca laga hadlaayo ee aadan ra'yigaaga siinin qofka. Marka ay jirto mushkilad weyni, waxaa muhiima inaad ogaato mar walba in ruuxani uu yahay wixii Ilaahay abuuray kii ugu karaamada badnaa. Waxaan kugula talinayaa inaad had iyo jeer awoodda saarto meelaha aad ruuxa isku waafaqsan tihiin oo aad ka digtoonaato inaad awoodda saarto meelaha aad ruuxa isku khilaafsan tihiin. Haddii aad sidaas samaysana, ruuxa kale waxaa waajib ku noqonaysa inuu isdifaaco, wuuna samaynayaa middaas, oo waxaa sii kordhaya garaaca wadnihiisa oo neeftiisa ayaa sii siyaadaysa. Heerkulka jirkiisuna wuu kordhayaa, dhiiggiisuna wuu karayaa si uu naftiisa u difaaco. Si aysan taasina u dhicin, waxaad had iyo jeer doodaada ka bilowdaa meelaha aad isku waafaqsan tihiin ruuxa. Halkaas ayaana ku joojinaynaa qaybteennii 11aad ee maanta. Waxaan sugnaaba waa qaybta 12aad. Waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.